halkani waa degmada Xudun oo ka tirsan gobolka Sool waxaana saaka aroornimadii hore isu soo baxay waalidiintii dhalay dhalinyaradii 2019 loo qaaday dalka Eritrea ee dawladda Soomaaliya ay u geysay tababarka dadkan oo dhammaantood ah waalidiintii ay ka maqnaayeen dhalinyaradu ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in si degdeg ah loogu soo celiyo carruurtoodii waxaana ay sheegeen inay jiraan dalal shisheeye oo ku loolamaya in ay ciidan ahaan u qaataan dhalinyarada codka ururkooyooyinka ay ka Soomaaliyeed dhammaan meel ay joogaanba oo ay ka maqan yihiin carruurtii laga qaaday gobolada Sool meel walba Sool Sanaag meel kasta waa laga qaaday qooyi meelan laga qaadin ma jirto carruurtaas oo 3 sanadood bay ninamadaas naga maqan yihiin markii hore waxa naga qaaday Farmaajo iyo Fahad Yaasiin dawladdu way dhismaysaa waana wacantay baa la naga qaaday hadii la naga qaaday ilaa iyo waqtiga iyo intii dawladii aanu ku wadanay inay askartaas noqoto askar Soomaaliya kaafida oo ay dawladdaas u burburtay waxa Fahad Yaasiin wuu ka dhacay waqtigoodii waxa fuulay waa la ogyahay waxa fuulay maxaan ku yiraahdaa ninka la yiraahdo Xasan Sheekh waxa weeye Fahad Yaasiin iyo ninka la Farmaajo waxaan ka aadaana hagraday awlaada sababtu ay tahay inaad ku soo qaado waad haysay maxad la sugaysana adaa og hadda waxaanu doonaynaa oo baaq u diraynaa ummadda islaamku meel ay joogtaba inay ka qayliso ummadda lana leeyahay hadda oo calooshayadu fadhiilaaday carab Maraykan meel walba la leeyahay lacaga la siisanaya annagu waxaanu leenahay ummadda Soomaaliya waxa weeye iyadoo Soomaaliya burburtay oo aan dawlad jirin oo meel ay marayso jirin dawlado kale aan caawinayna Soomaaliya liidnimadeeda waligeedba waa lagu yiqiin waana lagu ogaa waana lagu arkay Soomaaliya inaan dawlad kasto kacda toonaynaanay Maxamed Siyaad Barre aan kana dambeynayna sidiisii u raacayso Farmaajona waa nagratay adaa awlaadayda hagraday adaa meesha naga geeyay waxaan codsanaynaa oo ila ummadda Nabi Maxamed ka codsanaa ummadda islaamka ka codsanaa in awlaadayadii naloo soo celiyo Xasan Sheekhow Arab Maraykan baad maraysaa oo Arab baad maraysaa oo waxaad biirinayso garan mayno anagu lacagaha ku falayside noo soo celi awlaadayadii ilaahay adaa taqana dad islaamaad ummadda Nabi Maxamed ku jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فارق بأنه قد عاي إسلام هداتين إسلام لا سعودية وتكيجي. وبتكود مغني هاي شروع الترية وحنو كعصنا إن الدولة ده إن وبتكيجي أي هالكا كقاعدين فرماتشو يفهد ياسين سيدك دجنا لو جسوا عريو أنو قاعدين يكو قاعدين دولة بين نقرنا وسومالي ويمدو بيسا وحين نقرنا دولة وارتي رجعنا يجا هراء وهكردي waxaanu doonaynaa inay noo soo celiyaan oo si degdeg ah noogu soo celiyaan gobol kastaba ha nooga soo rogaan waa rag wax yaqaan way noo imanayaan hadii ay noo keenaan wadankoodii hooyo noogu soo celiyaan dawladda Eritrea ee noo haysa intaana waa noo mahad celinaynaa waxaanu doonaynaa in ragaana si degdeg ah naloogu soo qaado oo ay noogu soo celiyaan wadankoodii noogu soo celiyaan بسم الله الرحمن الرحيم waxaan baa ku diray dawladda federaalka Soomaaliya anagoo ku hadlayna magaca dadweynaha gobolka Sool gaar ahaan degmada Xudun waxaan baa ku diraynaa madaxweynihii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamadu qaaday 2019 waxaan nahay waalidiintii iyo dadkii laga qaaday ciidamada waxaan leenahay ciidamada si degdeg ah loogu soo celiyo waxaad la kama hayno muddo dheer marka dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo way burburtay waxaan u diraynaa baaq madaxweynaha naga qaaday madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamed waxaan leenahay si degdeg ah dhalinyaradii iyo carruuriya la noogu soo celiyo muddo dheer waxaad lana kama hayno oo baahanahay dhalinyaradii الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan halkan isugu nimi dad bulshada oo fara badan oo saxaafadda u qabanay waxa weeye meeshtan waa gobolka Sool gaar ahaan degmada Xudun halkan waxa isugu yimi waalidiintii dhashay carruurta wiilashaas ciidanka ah ee ku xiraysan meesha la Eritrea marka koowaad waxay halkan isugu soo banaan baxeen oo ay ku muujinayaan dareenkooda dadka ka maqan 3 sano aanay maalin iyo 2 mooyaane war badan ka hayn dadkaas bay dareenkooda ku muujinayaan waa hooyooyinkii iyo aabayaashii dhalay dadkaas marka koowaad waxaanu leenahay oo ka hadlaynaa
dawladdii hore madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo dawladda nabad iyo nolol waanu taageersanayn raalli baanu ka ahayn haddii la helayo waddaniyadnimo iyo Soomaalinimo dhab aan la helayo waxaanu raalli ka ahayn inay wiilashaas u adeegaan bulshada iyo qaranka bulshada iyo qaranka inay u adeegaan dawladdaas de way dhacday waqtigeedu wuu dhacay wiilashaasi sanad iyo badh na waxbarashay ku jireen sanad iyo badhna waa maxaabiis waa dad xidhan oo aan xornimo haysan waa dad aan ehelkoodi ka walhelin dawladdii dambe ee dhalatay ee uu madaxweynaha u xasan sheekh maxamuud waanu soo dhaweynaynaa waana taageersanahay cid allaale ciddii waddanimo iyo Soomaalinimo ku shaqaynaya ee wada waanu taageersanahay waanu soo dhaweynaynaa madaxweyne xasan wuxuu u tagay wiilashii waanu ku farxanay aad iyo aad baanu ugu farxanay markii aanu fagaare ka aragnay madaxweynuhu dhex taagan aad iyo aad baanu ugu farxanay waxa ka dambeeyay waqti fara badan baa ka dambeeyay madaxweynuhu sida laga warhayo wuxuu uga ballan qaaday wiilasha inuu Itoobiya ka degayo safarkiisa labaadna soo marayo oo uu Soomaaliya u raacayo in adeer naga daadaan madaxweynuhu wiilashii kuma noqon wiilashaas waxa laga ogaaday caalamka dhan cid waliba way aragtay Soomaaliya inay burbur ku jiro baad u muuqataa waxaanu ka warhaynaa in ummad fara badan in imaaraadku doonayo wiilashii inuu haysto oo shirar ka galay oo uu yiri askarta aniga hal ay siiyo oo hadii ku ruuyaana Yemen iyo Xuutiyiinta iyo wadamadaasaan geenayaa waxaanu caalamka leenahay oo islaamka muslimka leenahay oo cid kasta oo Soomaaliya joogto oo ay ka maqan yihiin dad leenahay ha loo kaco wiilasha oo ha laga hadlo dhibta haysata wiilashii arrimahoodu nooca weeye in dalal kale iyo wadamo kale loo qaado oo askar looga dhigo baa sida hadda ifafaaluhu noogu muuqdo ay u socdaan arrinkaana waanu ka soo horjeednaa haddii Soomaaliya jirto oo Soomaaliya ay wax ka qabanayaan oo Soomaaliya hagaagsan la helayo diyaar baanu u nahay in Soomaaliya la keeno ay dalkoodii ciidooda wax ka qabtaan waxaanu amar labaad iyo mar saddexaad ba ku celinayaa Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo soo halgamay oo 5 sano ay dalka joogeen dawladnimo wanaagsan Soomaaliya ka muujiyay waxaanu leenahay wiilasha xubinta koowaad dadka koowaad ee meesha geeyay idinka way qaabka aad ku geyseen oo iskala waxay qaabka ay u socdeen raalli baan u ka ahayn haddii ay dawladda Soomaaliya ka laga shaqeynayo waxaanu codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba ka hadlaynaa inaad wiilashaas la isu taago haddii ciidan Soomaaliyeed aan loo baahnayn oo Soomaaliya inay dhisanto aan la rabin inay shaqeyso de gobolay wiilashu gobolay ka kala yimaadeen waqooyi haddii ku reey Muqdisho meel kasta oo ka kala yimaadeen hal laga soo dajiyo dalkooda nabad ku yimaadeen haddii dawlad Soomaaliya oo israacsan oo macna leh oo rag wax bartay meel allaale meeshay doonaan bay ka imanayaan way tay karaan haddii la rabo dawlad Soomaaliyeedna hal la keeno ciidamadaas aanu leenahay oo xasan ka shaqeeyo iyo maamulka hadda jooga intaasaan haddana waxaan u dhiibayaa geelle Yaasiin la yiraahdo hayseena waan iskala warhaynaa hadda halka ka sheegi mayno laakiin markay noo muuqatay dawladda Soomaaliya inay bidhaamayso waanu taageernay inay ka shaqeeyaan waanu taageernay wiilasha haddaad ka hadhaan mas'uuliyadooda idinka leh waanu idinkala xisaabtamaynaa xilli kasta ay gaadho mas'uuliyadeeda idinka leh dadku way isu iman karaan meel kasta waa la isugu tagi karaa wiilasha mas'uuliyadooda iyo geentooda halka idinkaanu idinkala xisaabtamaynaa sidaad uga shaqeyn lahaydeen waanu idinka rabnaa xilliga aad haddii aad xilka xil qabtaan iyo Soomaaliyana meel kasta Soomaaliya geysaan waa nimada wax barteen oo tababar barteen oo idinku iman karaan wiilashaas waanu idinka fadhinaa waanu idinka rabnaa waanu idinka doonaynaa haddana waxaanu maqlaynaa waa la iibiyay wadama kan baa ugu jira kambiyaale inay iibsadaan oo googoostaan caalamka iyo adduunku waxay la celiyihiin Soomaaliya la tariyana waxaanu ka codsanaynaa inay soo iyo Afrikaba in wadanka igad waxaan ka codsanaynaa in lagu soo celiyo wadankii Soomaaliya dhalinyarada in lagu soo celiyo la tariya lagu hayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. صحافة وحلو قبتي عيدا كائلة تريا اللي جاي صدح سنة كهر وركي سبضنا مربى وحلورن شرو الدولة دي هو مركز شوكت لورن شرو ولا يبسدي
ugu dambayntii maalin cad uu u tegey madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa wixii uu ciidanka ka ballan qaaday inuu ka fuliyo waddankoodu ku soo celiyo waa kii u tegey isdhex taagay isagii la hadlay dadkaa dhalay oo wilwilsan marba warbaa ku soo dhacaya sidii loo odhan jiray waa la iibsaday haddana waxaa la leeyahay waa la iibsaday kana bixi mayso ilaa ay waddanka ku soo noqdaan oo ay arkaan marba qof wax dhalay oo dadkiisii maqan yahay walwalna la seexan maayo mar warbana warbaa ku soo dhacaya mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad dadkaa ku soo celisid waddankiisii ama ciidan ha ahaado ama shacabba ha noqdeenoo guryahoodii ha aadeene iyagoo nabad qaba ciidankaa inaad soo celisid hooyooyinkood iyo waalidkood aad welwelka ka biisid xilligaada madaxweynaha ahayn qofkii ugu hadalka badnaa baad ahayd haddee wixii aad ka hadlaysay haddana waa la iibsaday baa laleeyahay imaaraad baa iibsaday xuutiyiin baa loo rarayaa dadka dhalay ma seexdo qaar baa waashay waa curadadoodii dadka welwelka ka soo bii waad ballan qaaday hadalkaagii hore ka rumee waxaanu ku leenahay mudane madaxweyne wixii aad dadka u ballan qaaday wada ilmaynaya warkaas ka soo farxiyo dadkoodii ku soo celi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waad aragtaan inaanu saxaafad qabannay annagoo dadweynihii xudun waxaanu u qabannay sidii raggii horeba sheegay carruurta maqan dhallinyarada ah ee soomaaliya oo dhan ka maqan ee indhahoodii ah oo xooggoodii ah oo aan la kala lahayn haddana annaga labadaraane waxaa naga sii qaylaalsiinaya dee waanu dhallada waabadkayagii waa adkaysan kari weynay sidii haddeer laga warramayo oo la sheegsheegayo haddii ay jirto dawlad asliya oo la leeyahay waa dawlad soomaaliyeed dadkaasuna dad soomaaliyeed yahay waxaanu jecel lahay inaan dad kale ku adeegan oo loogu adeegin meel aan dalkooda hayna la marin waxaanu jecel lahay oo codsanaynaa in la keeno dalkooda lagu soo celiyo sidii horeba dawladda horeba ay u dirsatay loogu soo celiyo ay u adeegto dalkooda sidaasaanu saxaafadda u qabannay ummadda soomaaliyeed waxaanu u sheegaynaa ee islaamka ah cid kastoo soomaali ah inay arrintaa ka hadasho oo ka dhiidhido oo si taagto oo aan ubadkeenna iyo soomaalinimada la xumayn ee dal kale lagaga adeegan oo laga dhigin calooshiisa shaqayaal laga dhigin waddadaan ka naxayni meel kala geysan baanu ka codsanaynaa wixii islaama wixii soomaaliya oo dhiig ku jiro baanu ka codsanaynaa sidaasaanu saxaafadda u qabannay carruurtaasu dal badan bay ka timi bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayyidina maxamed codkayguna waa gaaban yahay sidaa uu sheegay maxamuud jaamac baa warkayagu ku kooban yahay kuna dhan yahay caalamkana waanu sheegaynaa wixii danaynaya soomaaliya ubadkayaga halkaa ku maqan ee la geeyey in dalkooda lagu soo celiyo hadday dawladnimadu mid jirta ay tahay annagoo aan cidna durayn cidna waxyeelayn cidna aanaan caayaynin haddii kale oo ay dawladnimada maanta joogtaa soomaaliya ay caqabaddeedu aanay hagaagsanayna in dalkooda la keeno baanu aad iyo aad u jecel lahay ummadda muslimka ah ee dawladahana aanu u sheegaynaa warkaana waxa weeye waxaanu dee warku waanu ka dheragsannahay waanu ka dheragsannahay nin waliba jeebkuu ku sitaa wuxuu warka kala baxayee ka helayo rag iyo dumarba jeebkaa qof waliba ku sitaa waxba dunida kuma kala qarsoona waxaanu leenahay inamada dalka soomaaliya hadday dawlad soomaaliya ay mid jirta tahay sidii ninkii hore ha lagu soo celiyo dalkooda oo ha la keeno haddaanay ahayn waanu u baahannahay oo waa ubadkayagii iyo dalkayaga hana loogu soo celiyo rag iyo dumarba waanu u dhannahay soomaaliyana meelaan ciid inamadaa laga soo ururiyey ma jirto
guri walba way ka maqan yihiin meel kasta oo Soomaaliya ay ama degmo u tahay ama ay magaalo madax u tahay ama ay gobol u tahay